Fariintani waxay ku socotaa qoftii aan jeclaaday, jacayl aan xad lahayn, qoftii qalbigayga guri ka samaysatay, jacaylkeedana ka dhigtay mid laabtayda suran. Haddii ay jirto in qof bini'aadam ah loo baahi qabo, naftayda adig ayay ku tabaysaa oo ay ku qanacsan tahay, iyadoo aan ka fikirayn culeysyada imaan kara mustaqbalka. Way ugu adag tahay inaan saacado ku waayo, taasina waxaa u sababa qalbigayga waxaa igu adag joojinta daqiiqadaha aan wada qaadanay. Waxaase taa igala sii adag inaan ku waayo adiga. Xusuustayda iyo maskaxdayda ayaad meel adag ka degan tahay. Dhoola caddeyntaadu waxay ii tahay wehel oo keliya ima tihid, waxaad sidoo kale tahay dareenkayga. Ma tihid dhiigayga, balse waan kuu damqadaa. Ma tihid wadnahayga, laakiin waxaan diyaar u ahay inaan xanuun walba kula dareemo. Jawigu waa mid aad u qurux badan, jacaylkuna waa dareen aad u macaan. Laakiin waa goortee? Iska fahan, waa goorta aniga iyo adiga jacaylka aan wadajir u daadihino.